arrimaheena ما شاء الله إن سيدا أمضوا ساعدوا الله كو ساعدوا سيدا أمضى تحجلسوا إلهي كو تحجليو هدي جرتو ما أنت بلاد أني أجيب كراود أو لا هي أو بلاد ماذا إيه وقسين حد ما يعدو يدو لقوسي حسوستو عنين كستو أحيقو حجستا مواري حولهاد ننكو أهيد يحنين باكو قربي marka xiraadu marata xilku ka wareega. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aadi idin salaamaya dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga oo walaashii farxiilaki halka ay daawaneysaan waa isla farxiilaki waxaan idin leeyahay galab wanaagsan oo wacan dhammaan qof walba waxay u tahay hadii habeen ku tahay hadii maalin ku tahay iyo hadii subax ku tahay hadii habeen ku tahay hadii maalin ku tahay hadii galab ku tahay sidoo kale waxaan ku leeyahay waxay ku tahay ba wanaagsan intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii horena aan uga hadlin laakiinse maanta ay noqotay nasiibkii iyo waqtigii ii saamaxay in aan ka hadlo youtuber Soomaaliyeed adinkuna aad wada taqaanaan anigana si fiican u aqaano adinkana si fiican u taqaanaan ma ahan markii aan leeyahay si fiican u aqaana in aan face isku naqaano laakiin waxaan ka aqaanaa barta bulshada ku kulanto ee YouTube-ka waxaan kamid ahay friendskiisa waxa la dhahaa youtuberkaas caanka ah arrimaheena ay galabta diirada ii saaran tahay ma ahan in aan maxay aheedo يعني wax ka sheegayo ma ahan in aan maxay aheedo si kale uga hadlayo laakiin waxaan uga hadlayaa sida uu Ilaahay u sameeyay iyo bini'aadanimada iyo naxariista ku jirto youtuberka Soomaaliyeed oo da'da yar waa youtuber Soomaaliyeed aad u da'da yar bini'aadanimada ku dheereeyo jacayl inuu dad badan caawiyo marka aan leeyahay ma ahan maxay aheedo waxa aan iska dhahayo waayo waxa jirta dad badan oo caawiye waxa jirta dad badan oo soo gacan qabtay oo maanta bulshada dhexdeeda magac ku leh kuwaas oo ay koow ka tahay Atrisha Baadiyo maanta heerka ay marayso Ilaahay ka sokow waxa ay ku heshay walaalaheed asaga uu koow ka yahay kaliya asaga ma ahan kaliis inuu saacideeyay laakiin waa walaalaheed oo asaga koow ka yahay una lahay sababta asaga waxaa jira youtuber kale oo badan oo asaga uu dadka baray soo saacideeyay maantana heer gaarsiisan ay hadana ay kamid tahay Salma Jeclay Yaxay Hunter maxay aheedo way badan yihiin haday aad soo tiriyo maanta oo 1 iyo 2 iyo 3 aan dhaho waxa laga yaabaa fiidiyogu inuu dheeraado aad yani adinkana aad maxay aheedo dhirkiisa dulqaad aad u yeelamaysan aad ku daawataan intaas kadib waxaan kale oo aan youtuberka Soomaaliyeed aan ku leeyahay ma sha Allah Ilaahay ku siyaadiyo waxa adiga aad ama walaal u heesid ama bulshada Soomaaliyeed u heesid waxa weeye waxaan kaleeto on fiirsadaa habka walaaltinimada leh quruxda leh sharafta leh ilaa sanad iyo maazaada ayaan ku xirnaa waa 3 wiil oo walaala hadana isku kalsoon markii aan u soo laabto dhanka walaaltinimada aad isku jecel waxa idin leeyahay horta Ilaahay walaaltinimadiina haydiisi siyaadi iyo jaceelka isku qabtaan waxaan kaloo idin leeyahay Ilaahay cimrigiina ha dheereeyo waxaan jeclahay walaalo badan idin siyaadiyo Ilaahay ha isku kiindeysto walaalkiina Asad Xaaji waxaan leeyahay Ilaahay ha ka kiciyo nabarkaaneeto dhibaatada ku soo gaartay Ilaahay caafimaad ha kugu bedelo ما شاء الله إن حارجينا يا رجال بدن إن الله ذا رجال هذا إيريا هذا إيهامي الله ذا هنا إلهي أقول ما يو إن وحين الله هاي دمانتنا لا سكين تستو إلهي البركيو أنت سكدي دعاء الله دعاء سيدي سلام سلاح نجر تعاول ودعينا ويجي دام ما شاء الله إن أنت سبحانه كينايو وناق يسيد أد سكوتي المركان أركب بكوس مركان أركض سكو وناقسن ولا لإيه أما صاحبه أما مركز سيقانو والله وان جعلها يا دي هذا وان جعلها
waxaan idin leeyahay marka ilaahay isku kindaysto. waxaan kaloo idin dhahayaa aan dhahayaa arrimaheena maasha Allah, sida aad ummada u saacido Allah ku saacido, sida ummada aad u tixgeliso ilaahay ku tixgeliyo. haddii ay jirto maanta bilad aniga aan dhiibi karo awood u leeyahay oo bilada bini'aadanimada oo ku siin lahay, cid ka mudneed ma jirto, because ma taqaanid xaasinimo ma taqaanid dadka Soomaaliyeed oo walaalkaaga oo garabka ku soo bido oo ku baahan maanta waxa ay kaaga baahiin ay tahay saacidaad. ma ahan inaad lacag siiso, ma ahan inaad xoolo kale ku beesho. isaacid walaal, suuqan adigoo iiga soo horeysay anigana in aan suuqaneeto aan ka noqdo suuqan ganacsigaygu uu heer gaaro, because YouTube runta hadii laga hadlayo dadku dhaqaale ayay u soo galaan. dad badan oo dhahayo waxaan u soo galnay inaan caan noqono, waa arkay ma jirto, taasi been waaye. waxa u baahan tahay dhaqaale. haddii aad caanimo u baahan tahay TikTok lagu caan baxaa oo caanimo meeshaas taala. haddii TikTok intaad ku soo caan baxdo YouTube marka usoo guurtay dhaqaale ayaa soo raadisay. haddii sheekadaada caanimo bis ay ku eg tahayna waa inaad TikTok bis ku ekaataa. marka waxaan idin leeyahay sida arrimaheena oo kaleete waa inaad dadka saacideysaan. YouTuberada caanka waxaa jira YouTubero badan oo xitaa dadka hadalkooda aan u qoorin. hal mid aad ogeyn, adigu maanta caan tahay, adigu maanta YouTuber heer ayaad ka gaartay YouTube-ka, dhaqaale badan aad ka samaysay. adiga walaalka uu u baahan yahay, because dhaqaalihii adiga soo galay ma aha inuu kula qaybsanayo, kuwa aad helaysay ma aha inuu wax ka qaadanayo, laakiinse halkani waa badweyntii ayuu dhinaciisa ka darsanayaa baaldigiisa. maxaad ugu diidaysaa? maxaad ugu ogolaan la'ahay inaad saacideyso? maxaad kuu diiday inaad gacan qabato? ma sheegi kartaa? waa xaasinimo kugu jirto adiga markaad tahay YouTuber caana haddana diiday dadka inuu saacideeyo. waayo adiga shalay markii aad taagneed heerka qofkan uu taagan yahay, dunida waxaad u jecleed qof walaalkaaya oo maalin uun ku caawiyo ama video kula sameeyo ama ku caawiyo oo kor kuu soo qaado. laakiinse adigu maanta markaad heerkaas gaartay waa diiday. hal mid laakiin waa inaad niyadaada iyo qalbigaada aad gelisaa. shalay adiga iyo caan waa noqotay, laakiin maanta dukum daakum ayaa dhihi kartaa oo bartii ayaad ku aamusi kartaa. ogow, adiga nafta maalin ayaa lagu geliyaa, waana lagaa siibay. allihii awoodi lahay oo nafta maalin ku geliyay kaana siibay, miyuusan awoodin inuu adduunka isku kaasaaran iyo dhaqaalaha iyo adduunka helaysa maalin gudaheed uu ku baaba'o? marka waxaan dhihi lahay dadka Soomaaliyeed YouTuberada caanka sida arrimaheena oo kaleete waa inay saacidaan dadka. dad badan oo maanta oo markay heer gaaraan soo istaago kaamirada horteeda dhahayo arrimaheena ka dambeeyay maanta inaan heerkan gaarno, in la aqoonsado. way buuxaan, wayna badan yihiin, waana aragnay. waxa waaye sida adinka aad ugu mahadcelinaysiin oo kale anaga ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay waa mahadsan tahay heerka aad bulshada dhexdeeda qiimaha aad ka leedahay iyo sida aad u saacideysid. halkaas ka sii wad, dadaalkaada sii laba jibaar. haka daalina gabar walaashay ama wiil walaalkaaya aad maalin uun adiga oo madaxaada wax ku helo, adiga madaxaada oo guul ku gaaro, adiga madaxaada oo dhaqaalo ku sameeyo. reer badan oo maantay leelehe wax aysan awoodin awoodda ilaahay ka sokow adiga madaxaada ay ku helaan waxa ay markaas haminayaan ama qalbigooda ku jiro. haddii aad awoodid u sameey, waan horena ugu sameysay, haddana insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaad halkaas kasii wadi doonto. waxaan rajeynayaa inay dad badan kugu dayan doonaan. waxaan rajeynayaa inay asaxaanku uu wax badan taro. dadku waa inay ogaadaan qof walbo oo bilaadan oo walaalkiisa uu asxaan sameeya, ilaahay ayaa u asxaab qalaasna. waxaa laga yaabaa qofkii shalay aad xumaysay, qofkii shalay aad tiri waxba kuu qaban maayo, ama hadalkiisii aad ka soo qaadi weyso wax, ama fariintii uu kuu soo diray aadan gadaal u fiirin in aad beritoole adiga aad u baahato.
ood raadisid oo dhahda hebel ama heblaayo wallaahi bilaahi tallaahi waa ku taageeraa wallaahi bilaahi tallaahi qof magaca lahaa tahay haye adigaa shal magac lahay adigaa maxay aheedo caan ahay lagaa daba ordaayo yes yacni aanan qofkaneeto siininba fursad aad ku yacni uu kugula hadlo ama uu wuxuu rabo kugu soo gudbiyo marka waxaan dhihi lahay dhammaantiin waxaa inoo balana inaan isku asxaab falno sida arrimaheena oo kaleetana aan horos yacni dadka inta badan aan gacan qabano dadka aan hore u wadno dadka aan maxay aheedo maasha allah anigu waan taageeraa insha allahu tacaala ilaahayna waxaa ugu baryaya aqriya adduun kaamil inuu ilaahay siiyo soo jid fiican ilaahay siiyo maxay aheedo awlaad baari ilaahay siiyo gabadha dunida ugu qaalisan ugu quruxda badan ugu qiimaha badan iyo awlaad baariya ilaahay kaaga baryaya insha allah waxaan kaloo ku leeyahay guuleyso mar walba insha allah guulan kuu rajeynayaa wax kaloo aan ku dhihi kara malaha kaliya inaan kuu duceeyo waxa aad tahayna aan sheego iyadoo la ogyahay weliba intaas ayaan kusoo gabagabeynaya videogeyga haddii aad ka hesho fadlan subscribe ii saar like ii dheh isii share garee commentigana insha allahu tacaala adiga waxa aniga sida aan u arkay adigana u aragtid kulley isku aragtay ayaan noqon doonaa wanaagu isma qariyo xumaantuna isma qariso waxaan jeclahay waxa wanaagsan in aad wada aragto